Asalaamu calaykum idil ahaantiin waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtaan. Waxaan wada eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyay Netherland iyo England. England waxay ahayd mid mar walba madaxeeda uu sareeyo, bandhigga ay qaadatayna waxaa lagu qiimeyn karaa bandhigyadii ugu sarreeyay ee xilli ciyaareedkanba ay la yimaadaan. England bilowgii ciyaarta 9 daqiiqo ee ugu horeysay shabaqada ayaa looga kabay, taas oo ka yeeshay in hoggaanka lagala wareegay. Hase ahaatee, England waxa ay ka qaaday sayax, taas oo kubaddii dhammeyd la wareegtay. Kubad bille afka laga soo dhisay, isku dhiibasho oo kaliftay markii dambe in hab garoonba lagu ciyaaro. Hase ahaatee, Netherland waxay hoggaanka haysaba khalad ayay gashay, taasoo penalty ku keentay. Harry Kane ayaa riday, kaasoo shabaqada ku hubsaday, ciyaartana garba siman ku soo celiyay. Half-time-kii dambe markii la isla soo gaaray, England waxay awood u yeelatay inay kubadda dhan kala wareegto, kadibna ku weerarto oo ku ciqaabto. England oo bedel loo riyaaqay samaysay ayaa waxay keentay Palmer iyo sidoo kale Watkins iyo Palmer oo bedel qurux badan ku imaaday ayaa isku dhiibtay, taas oo Watkins uu daba mariyay Portugal Netherland gool aad u qurux badnayd. Kadibna 90 minutes iyo wixii yarka ahaa ee lagu daray sidaas ayay ku idlaatay. Kadibna Netherland oo madaxeedu hooseeyo waxa ay ka huleyshay garoonka. Laakiin kulankii xalay ay ciyaaraysay ma ahayn mid loo riyaaqay iyo bandhiggii looga bartay, maadaama ciyaarta isku dar ahaan 80 daqiiqo ay difaac ku jireen. Haddaba, England waxay iska xaadirisay finalka, taasoo boqortooyada Spain ay la ciyaari doonto. Haddaba dhammaantiin aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan haddii uu ku soo gaaray like ii saar,